waxa weeyaan waa meeshii dadku ay ku soconayeen ku lugeynayeen oo runtii aad u cagaarsan iyadoo xilli jiilaal tahay dhir qurux badan ay ka baxday dooga cagaara masaajkii baa meesha lagu lugeynayay dhabarka ku haya dabaqyo baa hareeraha dhinacana naga ah runtii qofkii baa soo fadhiistay barandadiisa soo fadhiista maartay casarkii ama maartay barqadii oo cagaarka eeganaya ama markuu cabaar ku soo lugeeyo cagaarka isha la raaca iyo landscape-ka buurahaas cagaarka hareeraha ka xiga xilliga ay cagaarka yihiin xitaa intaan roobku jirinna de waa laga shaqeeyay meeshan biyaha ku socdo sida cagaar u tahay hadda waad u jeedaan marka waxaan leenahay qurba joogta iyo dal joogtaba magaalooyinka waaweyn waxay noqdeen wax la yiraahdo maartay de waa maartay waa saxmadda qofka doonaya inuu ka soo dhex baxo oo tago meel maartay saxmadeedu yar tahay isku qoofalan oo laamiga iyo guriga iyo cagaarka iyo meesha lagu lagaynayo iyo iskuulka iyo masaajidka intuba isku qoofalan yihiin waxaan filayaa waa dhismayaasha noocan oo kale oo ilaa shalay aynu maraynay ayaa maartay meelaha niyaddu aad qofku ugu degayso kamida marka qurba joogta waxaan leenahay Istanbul iyo Qaahira iyo Nairobi iyo Kampala iyo maalgashanaysa iyo South Africa ilaa Angola maalgashiga halkan uu ku haboon yahay loo soo noqdo dalka hantidana hala geliyo waxaan joognaa xaafadii Amal Village magaalada Garowe maanta waxaan aad ugu faraxsanahay oo xarunta xafiiska shirkadda Amal Real Estate ugu soo booqday wasiirkeeni oo noogu yimid booqasho isbriis ahayd oo aan aad ugu faraxnay isagoo kormeerayay mashaariicda magaalada ka socota oo dhan wasiir waxaan leenahay ku soo dhaw xaafadda Amal Village horeyna waad noogu timid haddana waa kormeerkaaga labaad oo aad ugu timid isbedel aad u tiro badan iyo xaafadii oo ballaaratay ilaahay idinkiis xaafadda qaybteedii hore oo iyadana isbedel laga wado albaabkii laga soo galay ha noqdo iyo qaybtii hore darbiyada ahayd maadaama aan u diyaarinayna xaafadii in la soo galo wasiir soo dhawow xaafadaadii weeye dee waana lagu soo laalaabanaysaa ilaahay idinkiis wasiirka dee isaga laftarkiisa inuu deegaanka xaafadda ka mid noqdana waan rajaynaynaa ilaahay idinkiis aad baad u mahadsantihiin aad iyo aad baad u mahadsan tahay muxuu ahaay waa runtii waa bilic waa horumarin aad u ballaaran weliba maartay dadka hawlgabka noqday oo dibadda jooga ama dadka maartay caruuraha ay dibadda ugu dhasheen oo dalkoodii caruurtooda aanay arag deganaanshaha ku wareeray oo marna Istanbul u qaxaya marna Dubai u qaxaya marna u qaxaya meesha la yiraahdo Qaahira u qaxaya oo qolo walba shuruucdii ka deganay dalalkaasi ay xanibayaan inay ku noolaadaan siday rabeen halkan inay ka helayaan meel sidii ay rabeen ugu noolaadaan oo qaraabadoodii iyo caruurtu ayeeyadood iyo awoogood iyo abtigood iyo eedadood iyo habaryartood iyo habarwadaagtood iyo inaabtigood iyo deriskood iyo yacni ay u imanayaan dhiigoodii u imanayaan qofkii guriga Istanbul ka gatay gurigiisa hadduu ka tala baxo guriga iska iibiyo meel kale u guur aan guriga cid ka iibsanayn kii Qaahira ka dhisay oo ka iibsaday oo kale saas ku dhacday kuwii Dubai saas ku dhacday inta badan ay yihiin maartay high rise building 20 dabaqa ama 15 dabaqa apartment dhexdeeda ku taala lahaanshaheedu awalba waxa weeyaan u hooyay ahayd macna badan oo lahaa ma jirin laakiin waa u jeedaa landscape meeshaas dhulkaas cimiladaas isku qofalan maartay beeraha iyo biyaha iyo iskoolkii iyo maartay cimilo maartay aan wax pollution lahayn oo dalkaaga hanti ay macna waa midaan hooy laga oranay meeshan haddaad maanta gurigaaga iska nacdo qaraabada qofka arfad leeyahay dig waad iska xidhan oo iska tago adduunka meeshay ka ashaqo kale tahay soo mar bisha sanadkaas fasax leedahay kaliya haddaad ku nasato waxa weeyaan hanti aad iska leedahay weeyo bangi ku taalo weeyaan meesha dunida kale aad ciriiriga ku qabtay marka waxaan leenahay qurba joogta siba waxaan arkayay guryaha Nairobi oo culimo xayeysiinayso oo leeyahay culimo gacan ku qabtay arintaas culimada ha joojiso lacagtii dalka ka saarayso oo leeyahay magac culimo laga saarayo waa aamin gacan aamin ay ku dhacaysaa gacan aamin ma gacan shisheeyay ku dhacaysaa hantida dalka lagu soo celiyo hana loo daayo